cirbad oo $115 miya la gadaayo oo noo diray oo kiimikaal ah kiimikaashaas hadda oo liigu wadaa xanuunkii waliba ihaya kaadi heesta taa markii la kaadinayo kaadidii xanuunaa ka dareemaa marmarka qaar malax iyo dhiiga soo raacayo. gurigan iga dambeeya waxa uu ku yaalaa degmada Dharkiinley gaar ahaan xaafadda loo yaqaan biyo degeenka waxa ku nool macallin iyo xaaskii iyo caruurtii ay dhaleen waxaana runtii qisada xanuunka badan ay tahay in xaaska ama hooyada caruurta korinaysa qaatiir badan oo magaalada Muqdisho ku yaala ay ku soo sheegeen cudurkii kansarka isbuuc kastana ay qaadato irbad kiimika ah oo $115 qiimo ahaan lacag joogta taasoo la sheegay in xanuunka ay ka baabi'inayso si jirkeeda uusan ugu fidin marka bal sheekadaas ayaan rabnaa oo faahfaahsan inaan maanta la wadaagno dadka Soomaaliyeed ee runtii dareenkoodu uu dhaqanayo. Caasho Xasan Xuseen oo ah hooyo ku dhawaad 7 caruur dhashay ayaa muddo sanad la daalaadhacaysay buro minka ka soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen inay kansar isku bedeshay waxbana aysan uga qaban karin dalka gudihiisa. Maxaa igu bilaabmay sanad ka hor igu bilaabmay intaas waa iska sii socday bukaan socda iska ahaay isbitaala iska aadeynay isbitaaladii maxay sheegan gynecology la ku hayo isbitaalkan Ihsaan kamid ah islaan gynecology oo isla wallaha u tagay ayadana sidii la sheegtay waxay gabadha infection ahayo laakiin wiil meesha jooga maxaa dhahay gabadhan waxa ku jiro gabadhan waxaan wax jiro ma ahanay naagtan lacagta la fiirino saay daawadaas ma hayso gabadhan waxa ku jira isbitaal weyn halo geey gabadhan sidii isbitaalkii Shaafi uu geeyay Shaafi markii la geeyay kombiyuutar ay saareen 2 kombiyuutar ali saaray 2 takhtar kombiyuutar ay kala saareen waxay dhaheen ayagana waxa ku jira kan ugu dambeeya marka maxuu ilahay waxa ku direena Shaafi ku wareejirina Shaafi asana maxuu ilahay qaliina tahay qaliin degdeg ah tahay qaliin degdeg ah tahay ayay qaliinkii markuu ilahay ana maxaa isdhahay xanuunkii abka yaraanayaba xanuunkii abka yaraanay alxamdulillah hadii qaliinkii ilahay waaba iska aqbalnay qaliinkii muddo maxaa ku soo wareegtay qaliinka intuu ilahay 2 bilood amal wax raadisa lagu jiro lacagtii qaliinka la raadinay alxamdulillah lacagtii qaliinka waa ku guuleysanay ilaahay waa noo sahlay qaliinkii la sameeyay markii qaliinka la sameeyay maxay sameeyeen baaris al diray alle wixii ay soo baareen qaliinkii wixii markay soo baareen maxuu dhahay gabadhan wax kama qabo kari 22 bir oo maray wax kama qabo kari gabadhan dibad haloo dirsi ugu dhaqsiyaha badan dibada haloo diro dibadii marka maxaa la aniga hadda qaliinka baxnay waxba ma heesano gabadhan wax kale noo sheeg isbitaal oo waxaas hata kisto wax ka bedeli kara noo sheeg amal alle isbitaalkii maxuu dhahay isbitaalkan iyo isbitaalka la Unisom jaamacadda Soomaaliya oo noo diray cirbad oo $115 miya la gadaayo oo noo diray oo kiimikaal ah kiimikaashaas hadda oo liigu wadaa xanuunkii waliba ihaya kaadi heesta taa markii la kaadinayo kaadidii xanuunaa ka dareemaa marmarka qaar malax iyo dhiiga soo raacayo. Maxamuud Ismaaciil Aadan oo ah ninka Caasho waa macallin iskuul balse ay muddooyinkan shaqadii waxbarista ka hor istaagtay xanuunka xaaskiisa maadaama ay mas'uuliyadii guriga iyo korinta caruurta ay xaaskiisu ka fariisatay xanuun daraadiis. 3 isbitaal ugu dambeeyay oo cadeeyeen in dalka gudihiisa aan waxba lagu qaban karin waxay ahaayeen Shaafi oo koodii hore cadeeyay iyo 2 jaamacadda Soomaaliya ama isbitaalka Unisom oo asagana cadeeyay iyo 3 isbitaalka Digfaar oo warqadihii cadeynta dalka gudihiisa aan waxba lagu qaban karin ee noo soo gudbiyay marka xanuunkeeda sidaas u jira waa kaadi heesta oo buro ku dhalatay buradaasina isku bedeshay kansarka faafa isku bedeshay. Qoyskan waxay iska qanacsanaayeen noloshooda madhargaanka ah hase ahaatee hadda waxa ku soo siyaaday culays ka tan weyn oo aysan xamili karin sidaas daraadeedna ay u go'aansadeen inay bulshada Soomaaliyeed wax weydiistaan.